والله نادي منين وبالله نادي منين والله نادي منين halkaad markii hore maxaa ka bedeli kartaa halkaad markii hore aaminsanayd aad walaala lahayd anigu kanaan aaminsanahay walaal joog dhulkaaga joogna laga baxay waliba leentii waa laga mashquulsay i'tiraafkii albaabka noo saarano marka iska kaale walaalna dhalinyaro reer just waxaan dhahay waa gobol intaasna khalad ah maya raali gelin waa ka bixi hadda raali ahaadaan le sababtoo Soomaaliland ayaga ani u baahan ayaga ima baahan ayaga ana u baahan mi ii baahan Soomaaliland ninka yar ee TikToker-ka ahna kamid dambuuna haduusan ka dambiyaranba ninka kale hadda idin muuqda oo ilaa madaxtooyadii ninkan wuxuu kamid ahaa dhalinta social media kala dagaalami jirtay Soomaaliland jiritaankeeda waxaan ugu xasuustaa ninkan yar heshiiskii MOU-ga oo aad uga hadli jiray waa magaaladii baranahayd hadda waxa dhishiikayaal la dhacay ciidamada Saarisoom dumaro mudaharaaday oo ka mudaharaaday dhibaatadii ceelbu ka dhacay timka daacadu waa maamulka Xasan Sheekh oo joogay Sool Bari Sanaag Bari la baxay habelka Hiraab fursada habi ay ku heleen maamulkii Puntland waxaana u soo dhaxmareen dhacdadaani laba cisho kor ka dhacay deegaankaasi ceelbu waana ayaga cidda gaalka riixaya mudaharaadkana shalay maanta ka socday deegaanadaasi looga soo horjeedo maamulka Puntland waxay soo muuqataa deegaanada beesha Warsangeli inay cagaha la sii galayaan marxalado la mid ah marxaladii 2 sano ama 3 sano kor inta hal qof naga noolyahay inaanu dhiman warina dhibataan diyaar ma utii waxaanu diyaar u nahay inaanaan Puntland dambe ismaqlin isma maqli karno saaxiib yalla hadda xataa gabar ay idinka shukaasada haddaad dhihisi noo fasaxa waa idin fasaxa saaxiib haddii kale Soomaa iga qalay banaanka iga mara bismillah saaxiib yalla kusoo dhawaada meel faraaligana waliban maxamed aadan oo ku bilaabay mawduucan caawa sida xisbiga Somaliland kulmiye wadan iyo kaah maanta ay waxay isugu yimaadeen saddex xisbi hogaamiyaashooda kulan ama shir ay uga hadlayaan doorashooyinka Somaliland oo la filayo inay dhacaan bartamaha sanadka soo socda haddana qaldanayna doorashooyinkaasi waa laba doorasho oo saaran golaha deegaanka iyo golaha wakiilada lacagta Somaliland wuxuu ku dhamaataba doorashooyin dabiiqada sanadka hore doorashooyinka dhaca Somaliland waxa ku baxay lacag aan ka yareen 20 milyan oo doolarka Mareykanka tan waa la mid doorasho taana waxay ka dhigan tahay sanad wax ka yar inay ku qarash gareyso Somaliland doorashooyinkooda lacag ku dhow 40 milyan doolarka Mareykanka lacagtana Somaliland waxay u dhisi kareysay airportyo iyo companiyo ay u shaqo tagaan dhalinyaro badan waqtiga iyo lacagta waxay qiimo ku leeyihiin in la beeqaamiyo laguna xisaabtamo kama aysan dhicin kaliya Somaliland isbedel xukuumi waxa kale oo ka dhacay isbedel siyaasadeed jihadii siyaasadda ayaa isbedeshay haddii sanado badan lahaa Somaliland siyaasadeeda iyo xisbiyadiiba waxay soo kooba beesha dhexe oo geelooda meel wada daaqin hadda ka sii daran tahay oo siyaasadii Somaliland gacantooda gashay hal deegaan taana maanta waxay ahayd mid ugu hadalhaynta badan gudaha Somaliland markii ay soo hor fariisteen ina xaashi ina kaahin iyo xirsi oo hal deegaan ka soo jeeda taariikhda Somaliland oo markii ugu horeysay xisbiyadeeda qaranka ay hogaamiyaal ka noqdaan saddex hogaamiye oo hal deegaan ka soo jeeda taana markii dhinac laga eego waxay ku tusinaysaa siyaasadda Somaliland inaysan ku dhisnaynba qabiil oo ay ku dhisan tahay aragtidaasna oo maanta mid sababtu ah inay miiskan soo wada fariistaan saddexdan hogaamiye isku deegaanka ah kuna soo baxay codadka ay ka heleen guud ahaan gobolada Somaliland bari ilaa min galbeed saaka saddexda xisbi halkan shir bay isugu yimaadeen ilaa hadda goor dhaweeyay u socday shirkan oo qodana ma ahayne dhowr shir oo hore ayay maxaan ku dhahday isugu yimaadeen hadday isugu yimaadeen si hufan oo urursan ayay uga hadlayeen arrintii ka hadlayeenna waxa weeye waa arrintii doorashooyinka meel fiican oo safgarad aad iyo aad u wanaagsan ayay maxaan ku dhahday ayay maraysaa saaka arrin ma doora ayaa markaa la isku raacay waxaa loo xil saaray markaa in 9 xubnood oo saddexda xisbi ka kooban inay soo ururiyaan muddo yaroo kooban oo ilaa 3-4 casho ah inay arrimaha soo ururiyaan dowladda shirka Dubai xisbiyadu maxaan ku dhahday isugu yimaadaan sida caadiga ah siyaasadda Somaliland siyaasiyiintu waxay noqdaan gudoomiye xisbi inay u tartamaan ama inay noqdaan madaxweyne waa ninka calaf u leh marka hadda saddexdan hogaamiye deegaanka ah mid kasta wuxuu rabaa inuu ka noqdo Somaliland madaxweyne hal mise ayaa ugu cadcad siyaasiga hadda la sii saadaaliyay inuu noqon doono madaxweynaha xiga Ciro waa hadduu soo laaban Ciro siyaasiyiinta Afrikaanta way damac badayeen hadduusan Ciro mar labaad soo sharaxin madaxweynaha xiga Ciro wuxuu noqon doonaa ina xaashi ina kaana isaga rajo laga ma qabo inuu ka noqdo madaxweyne Somaliland xirsina warkiisa wadaa isaga ma walahan baahibad iyo saameyn siyaasadeed markii horena xirsi meesha wuxuu ku yimid haddana uu ku joogaa saameynta madaxweyne Ciro
wixii ka dambeeyay doorashooyin ka dhacay Somaliland dabiiqada sanadka hore xisbiga mucaaradka noqday kulmiye waxaa hareeriyay muran iyo khilaaf sala ku haya cidii sababta u ahayd guuldaradii xisbigan ka soo gaadhay doorashooyinka looga adkaaday madaxweynaha hore Somaliland Muuse Biixi ilaa haddana xisbigaas kulmiye kama soo kaban murankaasi khilaafaadkaasi waana sababtan uu yiri rajo lagama qabo inay ka ahayn inuu noqdo madaxweynaha Somaliland laba midba isagoo kala kulmay gudaha xisbigaasi loolan siyaasadeed iyo isagoo ka haysan inay ka ahayn deegaankiisa taageero siyaasadeed waana tan kor u soo qaadaysa rajada ah in xaashi xisbigiisa inay bedeli karaan madaxweyne Ciro iyo xisbigiisa way dhici kartaa xisbiga kulmiye in lagu sameeyo dib u qaabeen maadaama uu haysto khibrad 20 sano ah ayna dib ugu soo laabtaan saaxadda iyo saameyntii siyaasadda Somaliland aan ka sii gudbo qodobkaasi mar raba inaan ku sii dheeraadee shalay maanta deegaanada Ceelbuur iyo Baran waxaa ka socda mudaharaadyo waaweyn oo lagu soo horjeedo maamulka Puntland ee duqeynta lagu qaadajiyay mid kamid ah odayaasha dhaqanka beesha Warsangeli ilaa haddana duqeyntaasi dilka loo geystay aqalkaasi wax xoog oo faahfaahsan lagama hayo qolihii maamulka Puntland oo ka aamusan xitaa kama shataaceen falka halkaasi ee ka dhacay xaaladda bariga Sanaawi ka cabsan tahay waxaa la soo tabinayay saacado ugu dambeysay deegaankaasi inay mar kale ku soo noqonayeen diyaaradihii duqeynta geystay deegaankaas waxa soo galay ma yara dadka deegaankaasna mar kale wax ka cabso qabaan diyaaradahaasi in ay dhibaato u geystaan waa magaaladii baran ahayd hadda waxaa dhishiikayaal la dhacaya ciidamada Saarisom dumaro mudaharaaday oo ka mudaharaaday dhibaatadii ceelbu ka dhacay caqalada in dadka shacabka dhishiikayaal loo adeegsado iyo xabad nool waa uga dignaa ciidamada BNPF waxyaalaha ay ku kaceen duqeynta iyo dilkaas oo nagu soconayay ilaa 2005tii haldoor iyo dhalinyaro ahaan iyo qayb maalin kasta marba mid la dilaya haddana madaxdii iyo simadii iyo dhaqankii la marayo waxaan mudaharaad ka nahay nabadoonka lagu dilay degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag haldoorka Warsangeli ahaa duqeyntaas oo intaas oo sano nagu soconaysay oo maalinba meel lagu beegsanayay tiimka daacadda waa maamulka Xasan Sheekh oo u joogay Sool Bari Sanaag Bari la baxay habelka Hiraab fursada habi ay ku heleen maamulkii Puntland waxaana u soo dhaxmareen dhacdadaani 2 cisho kor ka dhacay deegaankaasi Ceelbu waana ayaga cidda gaalka riixaya mudaharaadkana shalay maanta ka socday deegaanadaasi ee looga soo horjeedo maamulka Puntland waxay soo muuqataa deegaanada beesha Warsangeli inay cagaha la sii galayaan marxalado la mid ah marxaladii 2 sano ama 3 sano ka hor ka taagnid laasacanood waqtigaas oo deegaankaasi ay ka wadeen rabshado gacmo shisheeye rabshadahaas looga soo horjeeday joogitaanka deegaankaasi ee Somaliland waxay shucuurtooda u muujinayaan dilkii halkaa ka dhacay dilkaasi ma ahayn dil caalamka meelaha uu ka dhaco waxaa ka mid ah Iiraan waxaa ka mid ah Yemen waxaa ka mid ah Lubnaan meelaha uu ka dhaco Puntland baa geysatay annagu cid kale uma haysano dilka waxa geysatay dawladda Puntland inay annaga dadkayaga disho haldoorkayaga iyo ragga isimada iyo ragga nabadoonnada iyo dadkayaga haldoorka inay geysato inay disho oo calooshooda u shaqaystayaasha imaaraadka iyo dadka u wata ay soo kaxaysato ma yeeli doono waxaan u diyaarnahay inta hal qof naga noolyahay inaanu dhiman warina dhibatada diyaar ma u tihiin waxaanu diyaar u nahay inaanaan Puntland dambe ismaqlin waxaanu diyaar u nahay inaanu dalkayaga iyo dadkayaga difaacno waxaana la ka raacay dhulkayaga khayraadkiisa iyo dadkayaga la dilayo iyo dalkayaga xukunkiisa hadda waxaa jira dad u jooga oo la yiraahdo oo madax u ah oo waliba annaga naga dhashay kuwaas waxaanu leenahay saacada laga bilaabo haddaynan inay hebel noqon naga mid mihin dagaalka ugu horeeya iyaga waa in lagu bilaabo badan bay joogaan waa in dagaalka ugu horeeya guryahooda lagu bilaabo waa in maanta la gubo waa in aan loo aaba yeerin oo loo aduu kula dhashay iyo aduu wax kula yahay midna weynaa la oran waa inay noqdaan ina hebel iyo kuwa annaga nala dhashay inay noqdaan waxaan cambaarayn u soo jeedinayaa dadka ka dhashay gobolka oo ah xildhibaanada Puntland xildhibaanada nagu metela Soomaaliya aan ka sii gudbo qodobkan aan ku soo afmeero mowduucan caawi ninka yar idin muuqdo wuxuu kamid yahay dhalinyarada isticmaasha ama ku jirta social media una badan aalada TikTok ninka yar wuxuu sheegay sidoo hadalka u dhigay safar ku imaan lahayn Hargeysa isaga iyo asxaab kale la socotay in isaga si shakhsi ah safarkiisii buuq loogu furay kadib markii loogu hanjabay hadii uu cag soo dhigay Hargeysa in la xiro doono cid uu hanjabay saacad kala ma ahan waa commentlada Somaliland iyo daayar kale ayagana social media kula jirta wuxuu sheegay ninkan uu noqonsan yahay sababta keentay hanjabaadiisa inay la xiriirto hadal 4 sano ka hor afkiisa ka soo yeelay maaday oo afasaxday way jiraan ani maxaa lagu haystaa ani yaa liga dhaxarka macna yaa liga dhaxarka
قف هذا ما يعيش كله واقع لكن أنا يا اللي قد حركة كي لبض مغلاتي لبض أنا واحد خلط وأجيست مرة جس وحنا هو قبل أنت أصلا خلط يعني ما يورالي قلي ما كبي حد رالي هذا لا صوت سومالان أنا أيجا أنا أباهن أيجا يمباهن أيجا أنا أباهن مي يباهن سومالان مرك كرال صوته أنا وحاء قف يوتيوبر دولك الصومالي ده ما صوت دوا يبلع هذا بلع دين إنا صوت دوا روا يوتيوب شو باهي تدخل بجوجا يداوضه فهمتين laamiga amniga Soomaaliland laba talaabo waxa ka horeeya shacabka gaar ahaan da'yarta social media ku jirta faalooyinka ama commentiyada ee ku dagaalata ninka yar hadda TikToker-ka ah qaladkan ka dhacay 4 sano ka hor intii ogeed way yareed hadda sheekadiisa ninkan yar waxay noqotay mid labadii cisho ama saddex cisho ugu dambeysay ku faaftay social media cid kastana gaadhay sida ka muuqata ninka yar hadalkiisana wuxuu xiiso weyn u qabaa imaanshaha Hargeysa xiisihiisana kulli kama marna sidoo sheegay qof dumar ah xiriir kasta kala dhaxaysa xitaa ninka yar uu aamini karo waa markuu raaligelintan u baxshay commentiyada markii horeba ku qalqalgelisay ay ku yiraahdeen waa aqbal raaligelintaada xitaa uu aamini karo waayaba wallahi wabillahi qarash badana diyaarsaday wax badana diyaarsaday yani qorshooyin badana kala ha meeshaas fahmaysa saaxib yalla hadda xataa gabar ay idinka shukaasada haddaad dhihisi noo fasaxa waa idin fasaxa saaxib haddii kale Soomaa iga qalay banaanka iga mara war wallahi oo billahi oo tala cafiskan hadda soo qoraysin kaligiis ma aaminay wallahi waa ku cafinay aan aamini kara wallahi boorsideedii wixii dhan waa iska cistay sababtoo ah ani ma ku kala soonaan kara halkaas inta iska soo baxo diyaarad soo raac meesha imo maxaa ku qabsan kara qof kaligiis iska socdaata marka saaxib yaal hadalka muhiimada laga isticmaalaa xaggaas dadka joogo waa dad la jamaa waa dad walaalo ah wadada ixtiraam u haayo wadada wanaag iyo walaalnimo iyo wada dhalasho iyo isku dhiig isku dheecaan aan nahay qadiyado kaliya lagu kala duwan yahay war wallahi inaad imanayn oo billahi inaad imanayn oo tallahi inaad imanayn halkaad markii hore aaminsanayd maxaa ka bedeli kartaa halkaad markii hore aaminsanayd aad walaala lahayd anigu kanaan aaminsanahay walaal joog dhulkaaga joogna laga baxay meeshaas xukunka dawladda waxa ka jiro in la xiro in la garaaco waxaasoo idil waa wax sharciyo jiro war aniga nin Soomaali oo garaacayo ugu garaacay shalay maxaa noocaysay waxba uma arka anaga Kenyaati aan garaacayo wax la yaab lama aha nin Kenyaati Soomaali labadiina hadda waxay leeyihiin Soomaali dhalinyartaas labadoo soo baxayso ha ka harin soo raac iska soo raacuna macna dunia wixii ilaahay ku qoray maalinkaad xab iyo biyo noqotay ee uurka hooyada gashay lagu qoray cid seejinaysa ma jirto iyo cid baajinaysa waad ismudanaysan hadda 10 sano maqnaato ilaahay waliba leentii waa laga mashquulsay i'tiraafkii waa albaabka noo saarano marka iska kaalay walaalna dhalinyaro reer TikTok waxay wax laga siiyana meesha oolinta ninka yar si dareen ayuu hadlay wuuna qarsan yahay inuu gafay dadka dalka Soomaaliland raaligelin uu baxshay afisna u dalbaday afiskiisu waxay ku xiran tahay inay aqbalaan laamaha amniga iyo shacabka hadda waxaa jira dad u dhashay Soomaaliland oo dambiyo waaweyn ka kala Soomaaliland iyo shacabkeedaba sidaas ay taana ku soo galay Soomaaliland afis ay ka dalbadeen laamaha amniga dadkaasi qaarkood ayagoo afis ku yimid Soomaaliland ayaysan soo dhaxgali karin shacabka ayagoo aan wadan security marka ninkan yar isagu waxa wanaagsan maadaama shacabkaas uu rabo inuu dhex galo dalxiisna u socdo inuu si guud shacabka Soomaaliland afis u weydiisto midda labaadna inuu si bareefado hoose ah ula xiriiro laamaha amniga Soomaaliland dadku waa wada Soomaali qof ayaa meel kasta u jooga inuu la xiriiro laamaha amniga una ka qaato warqad dambi la'aan ah sidaasna ku soo dhaxgalo dadkiisa ninka yar ee TikToker-ka ahna kamid dambiwana haduusan ka dambi yareenba ninka kale hadda idin muuqda oo ilaa madaxtooyadii ninkaana wuxuu kamid ahaa dhalinta social media kala dagaalami jirtay Soomaaliland jiritaankeeda waxaan ugu xasuustaa ninkan yar heshiiska MOU-ga oo aad uga hadli jiray waxaana wanaagsan daawadayaal war degdeg ah Cabdijiil Show ayaa la socotaan maamulka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxay sheegeen in guddi farsame ay u saareen heshiiskii afgaradka ahaa ee ay kala saxiixdeen